shabakadaha bulshadu ay ku wada xiriirto ee loo yaqaano baraha bulshada gaar ahaan social media ayaynu markaa wax yar ka oran doonaa. social media waa madal ay dadku ku xiriiraan haddii ahaan lahayd xiriirka xagga iska warqabidda warbixinada waa meelo wax lagu gudbiyo. waxyaabaha cajiibka ee la yaab kale waxay tahay shabakadahan markii hore waxaa loo asaasay in markaa bulshadu ay ku wadaagto wararka fikradaha iyo macluumaadka wanaagsan. waxay ila tahay ani maxamed ahaan meediyaha saameyntiisa annaga Soomaali ahaan aad ayuu noo saameeyey. xagga amniga saameyn weyn ayuu ku leeyahay, xagga akhlaaqiyaadka carruurteena haweenkeena saameyn weyn ayuu ku leeyahay. ani maxamed ahaan maanta waxaan moodaa media social media ay tahay bar moodow oo inta badan Soomaalideena ay saameyso. baraaruga dadkaygaanidha 100 kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan bilaadaadini. kulan waa saaxiibayaal ula soo dhawaada muuqaalkan oo markaa kaga hadleelo habka aan wanaagsaneyn oo ay Soomaalidu markaa u isticmaasho baraha bulshada oo markaa loo yaqaano social media. dabcan shabakadaha bulshadu ay ku wada xiriirto ee loo yaqaano baraha bulshada gaar ahaan social media sida Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat iyo wixii la mid ah ayaynu markaa wax yar ka oran doonaa qaabka aan ficileel ee bariyahan dambe bulshadeenu ay u isticmaasho iyo sida markaa ay tahay in bulshadu markaa u isticmaasho ama sida markaa wanaagsan oo ay tahay in bulshadu markaa ay uga faa'iideysato baraha bulshada. muuqaalkan markaa waxaa wadajir markaa idinkugu soo baahin doono anigoo ah Sakariya Maxamuud Cali iyo sidoo kale maxamed xuseen maxamed ugu horreyn waan kusoo dhaweynayaa waxaan rabaa in markaa aynu ku horeelno sida markaa wanaagsan social media markaa bulshada ay uga faa'iideysan karto ama sidoo kale waxyaabaha loo asaasay baraha bulshada iyo waxa markaa loola jeeda markii hore. Zakari aad u mahadsan tahay. social media waa madal ay dadku ku xiriiraan haddii ahaan lahayd xiriirka xagga iska warqabidda warbixinada waa meelo wax lagu gudbiyo oo dadka iska waayga hore waxaa la isticmaali jiray dadka waxaa ahay raadiyaha iyo joornaalka iyo waxyaabaha fariimaha dadka inay isku gudbiyaan gabayada heesaha. hadda waxaa bedelay social media inkastoo weli gabayiga iyo heesaha weli fariimo lagu gudbiyo laakiin waxaa moodaa hadda waayahan dambe in social media qeybihiisa kala duwan in lagu gudbiyo. marka social media wuxuu leeyahay qeybo wanaagsan iyo qeybo xun. waxay ku xiran tahay social media asaga dhan ma xumo laakiin waxay ku xiran tahay bulshada waxay qaabka u isticmaalayso iyo waxyaabaha loo isticmaalayo. inta badan social media markaan ka eegno dhanka wanaag badan ayaa lagu soo gudbiyaa haddii ahaan lahayd xagga diinta dadka wacyigelinta xagga diinta ah fariimaha dadka in la caawiyo social media la isku caawiyo iyo waxyaabo kale aad u badan xagga aqoonta. sidoo kale social media waxbaa lagu bartaa waa jaamacad oo maanta wax walba aad ka raadiso mas'alo walba haddii ahaan lahayd xagga cilmiga xagga teknolojiyada xagga caafimaadka wax walba nolosheena quseeyo maanta waa laga heli karaa. fikir ahaanteeda aan waxay waa social media waa jaamacad wax walba oo ay kuliyad walba ay ku dhameystiran yihiin. halka kale dhanka kalena loo eegano jaamacad xumaanto dhan ay ku dhameystiran tahay. marka waxay ku xiran tahay bulshada qofka isticmaalaya qaabka uu isticmaalo. haddii wanaag uu isticmaalo wuxuu helayaa meelaha wanaaga iyo faa'iidooyinka faraha badan leh. haddii xumaanta uu isticmaalana waxay leedahay qaybo badan xumaan ah oo jaamacado waaweyn ku yaalo xumaanta. dad badan oo social media maanta active ah ay u isticmaalaan xumaanta inay kusoo gudbiyaan. waa mahadsantahay maxamedow. waxyaabaha cajiibka ee la yaab kale waxay tahay shabakadahan markii hore waxaa loo asaasay in markaa bulshadu ay ku wadaagto wararka fikradaha iyo macluumaadka wanaagsan oo ay markaa daleelayaan in markaa ay isla wadaagaan. balse waayahan dambe waxay noqdeen meelo markaa ama meelaha ugu waaweyn ee lagula dagaalamo bulshada dhaqankeeda diinteeda afkeeda xasiloonideeda siyaasadeed iyo xitaa fikirkooda ummadda Soomaaliyeed ama fikirkooda markaa ummadeed markaa meelaha lagula dagaalamo ee ugu waaweyn. maxamed isbedelkan markaa yimid barihii dambe ama muddooyinkii dambeba sidee markaa u aragtaa maxaase markaa loo gudbi karaa aslada.
Zakri aad u mahadsantahay waxay ila tahay ani Maxamed ahaan meediyaha saameyntiisa anaga Soomaali ahaan aad ayuu noo saameeyay xagga amniga saameyn weyn ayuu ku leeyahay xagga akhlaaqiyadka caruurteena haweenkeena saameyn weyn ayuu ku leeyahay ani Maxamed ahaan maanta waxaan moodaa media social media ee tahay barmoodo oo inta badan Soomaalideena ay saameyso midka siyaasiga ah midka dhaqanka ah midka haweeneyda guryaha joogta midka macalinka ah dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan saameyn weyn ayuu ku yeeshay bal hadda waxaan ka baqayaa caruurtii waxbarashadooda inuu saameyn ku yeesho waxaad arkaysaa oo aad ula yaabay marka qaar marka guryaha tagto caruurta yar ah mobilka qofka ay ka qaadayaan YouTube TikTok ay daawanayaan waxyaabaha ay fiirsanayaan waa shorti waa time yar waqtiyada yar ay daawanayaan inta badan waxyaabaha markaas la soo gudbinayo badankooda waxyaabo aan wanaagsaneyn cunuga hab fikirkiisa ama qofka weyn fikirkiisa waxyaabo aan waqtiga aan ku wanaagsaneyn inaa ku dhimiso waxyaabo akhlaaqiyad gabar yar oo iska heesiiso dhaxda qof qaawan waxyaabo aad muddo bulshada inay ahayd in laga celiyo ayaa caruurteeni ku soo barbar waxyaabo aad ugu nax waxa kamid ah oo aan isqabal maxaan saalo xakameeya caruurta waxyaabaha ay fiirsanayso qof qaawan oo meelaha ka niikinaayo cunuga hadoo arko cunug yar 3 jir ah oo ku barbaaraa xumaanta wuxuuna u noqonay wax caadi ah noloshiisa waxaan wax aan dhibaato aan lahayn maskaxi ahaan iyo qalbi ahaan iyo fikir ahaan wuxuu ku koraa xumaanta kadibna waxa imaanaysa bulsho wada xun oo waxyaabaha xun la ah waxyaabo aan caadi ah oo nolosha kamid ah marka aan Maxamed ahaan fikirkayga social media saameyntiisa xagga xumaan aad ay u badan tahay xagga mujtamaceena Soomaali ahaan waxaad moodaa inay aad ugu sii liidato bal eeg maalmahan waxyaabaha socda baraha bulshada saalan xasaradaha ka jiro Soomaali dhaxda xagga siyaasadda waxaad moodaa in aad loo karkarina waxyaabo oo Soomaalida ay ka gudubto qabiil oo aad moodo qabiilka in social media kaliya ku soo haray oday dhaqameedyadii dadka dagaalami jiray maanta inay xagga soo aadeen gacan ku dhiglayaashii dadka dagaalka qabiil u dagaalami jiray maanta social media wal Facebook oo leeyahay mid TikTok oo leeyahay qabiilkii iyo soo gudbina bulshada dhan ma qabto cudurka laakiin dad yar oo dadka dili jiray isbaarada dhigan jiray ayaa media soo fadhiistay waxaad moodaa in xumaantii iyaga ay hayeen bulshadii inta u soo waciyeen marka waxyaabaha social media xagga Soomaali marka laga hadlayo waxay anaga dhibaato nagu tahay waxaan ka baqaa sida Rwanda camal inay nagu dhacdo waxaad ka warqabtaa sagaashimeedii wadanka Rwanda la idaacad yar ayaa isku jirta laba qabiil Tutsi Hutu waxa lagu xasuuqane waxyaabaha taariikhda oo aan laakiin maanta waxaan ka baqaa Soomaali inay social media ay saameeyaan xasuuqaas iyo mid ka daran inay iyaga isku isticmaalaan media sida Facebook iyo TikTok iyo maxaa la Twitter هذا برت إكس لو يقانو إنستغرامك ميلا إن لو استعماله هذا يعني نوع عفسي قبا وين وإيوها يا مدى وهاجاج محمد يدا لو حسد بدل البركة دولة فدرالك الصومالية قارها لابها أمانكو البركة اللي يرب بدل وبره بالشدة بركة خاب خالدل دتكو بركة سوق دري البركة أيقولوا على رجلي أيقولوا بركة لحري oo marka qaabka qabiilada iyo dadku ila isku daraan marka laga hortagay waa hagaag dhalinyaradu waa in marka ay ogaalo in horumarku iyo sidoo kale dib u dhac umad walba ay horseed u yihiin dhalintu sababtu waxa waaye dhalintu waa dadka ugu badan wadan walba maalta ay marka lagu ugu horaano dhalintu waxay hayaan tamar xoog furan iyo sidoo kale waqti firaaqa ah oo marka dadka dhexe iyo kuwa weyn marka aysan lahayn dhalintu intooda badani waxay leeyihiin aqoon heerkeeda rabto marka ha ahaato wax badan ayay marka gudbin karaan marka social media ama baraha bulshada marka ay tahay dhalintu waxay aad marka ugu xiran yihiin baraha bulshada iyo waxyaabaha ka dhacaya dunida oo idil haddaba dhalintu waxa waajib ku ah in marka ay noqdaan kuwa u horseeda ummadooda horumar iyo sidoo kale baraaro ayagoo ka faa'iideysanaya qodobada marka ay kor ku soo xusla sida marka ay ku jiraan waqtigii marka ay ugu xoog furlaayeen waqtigii marka ugu tabarta badlaayeen